assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kusoo dhowaada muuqaal cusub. maanta waxaan ka hadlaynaa cudurka gaaska. cudurka gaaska iyo cuntooyinka u roon. maxaa keeno cudurka gaaska? gaaska waxaa keeno asidka caloosha ku bata, wuxuuna ku badan karaa gaajada muddo dheer oo qaadata. maxaa sababa gaaska? waxaa kaloo sababa daawooyinka sida asbrinka iyo antibiyootiga iyo qaar kale. waxaa kaloo sababi kara gaaska cabitaanada aashitada leh sida faantada, kookada iyo sbaraydka. sidoo kale cuntooyinkan dhammaan waa kuwo la khamiiriyey iyo weliba kuwo la shiilay, waa inaad iska ilaalisaa, sida balwadda, sigaarka iyo tubaakada. waxay sababi karaan gaaska. gaaska waxaa kaloo sababi kara bacteria loo yaqaano H pylori. gaaska wuxuu bogsin karaa caloosha. calaamadaha gaaska waa 11 calaamadood. haddii aad ku aragto, waa inaad si deg deg ku gaartaa dhakhtar. qodobka koowaad, bog xanuun. qodobka labaad, calool xanuun. qodobka saddexaad, dibiryo. qodobka afaraad, daaco. qodobka shanaad, aaryo ama hawo iska buuxiso caloosha, feeraha ku wareegsanto, marmarka qaarna oodin isku beddesho. qodobka lixaad, cagaha iyo gacmaha oo hura qofka. qodobka toddobaad, hurdo xumo, qarow oo wadata qofka. xitaa waxaa dhacdo inuu ka soo naaxo hurdada, khaasadan markii laga kiciyo hurdada. qodobka sideedaad, carabka oo nabro yeesho. qodobka sagaalaad, wadna garaac zaa'id ah. qodobka tobanaad, laabjeex. qodobka 11aad, wareer qofka oo wareero, miisaankiisana uu yaraado, markuu istaagi rabana, gaar ahaan markuu cabbaar jiifane ama fadhiyey, wuu tabarbeelayaa. talada dhakhtarka qaado hadday wacan tahay in aad fahmaysid. ha seexanin adigoo dhargan. ha seexan adigoo baahan. cab caano qabow. mid aan dhanaan lahaynna iska ilaali. markaad seexanayso waxaad iska ilaalinaysaa caano dhanaan leh. gaajada iyo dharagta waxay u daran tahay qofka qaba gaaska. cun oo xadid cunno isla markiiba ee aad u taya leh, saddexda waqti oo ku anfacayso. FG, fiiro gaar ah. haddii aad dhiig matagto ama aad saxrooto, waa xaalad deg deg ah, fadlan la xiriir dhakhtarka. saxarada dhiigga wadata waxay ku ogaan kartaa ama adi aad ku ogaan kartaa saxrada oo isbedesha ama noqoto madow, marna oo adkaysi noqoto ama aada u adkaato. waxaana la soco karo dhiig saxarada. cuntooyinka dabiiciga ee u roon gaaska. xanuunka qofka qabo wuxuu u noqon karaa mid ka dhasha asidka caloosha ku bata, waxaana lagu daaweyn karaa 7 hab oo kala duwan. marka koowaad, malab saafi ah isticmaal subaxii markaad hurdada ka soo kacdo. qaando malab ah ama ku darso galaas biyo ah, kadibna cab. lambar 2, oat meal ama burka safoolka ah wuxuu u fiican yahay dhuuqida aashitada caloosha. qodobka 3, sanjabiil qoyan ku rid galaaska iyo biyo, kadibna markay ku bilanto cab. waxaa yaraanayo laabjeexa iyo biyaha kulul oo qofka kusoo rogmado. iska ilaali sanjabiilka qalalan maxaa yeele waxay kicisaa gaaska. dacarta waxaad ka heli kartaa iyadoo la farsameeyey laguna iibinayo farmashiyaasha, waxayna daawo u tahay boog calooleedka, taasoo ku samaynayso mid ka yarayso qofka gaaska qabo. qodobka 5, qudaarta cagaaran sida salarka ama salaatada sidaa u taqaan. qofkii badsada calool fadhi iyo gaasba intaba isma arkaan. qodobka 6,
caanaha laga soo saaray subaga qabow waa muhiim inaysan ahayn dhanaan ama suusac. Qodobka 7, babayga ha ku darin liin iyo sokor. Gaaska kale, waxaa kaloo jira cuntooyin lagu kala duwan yahay, dadka qaarna dejiyo qaarna ku kiciyo, waxaana ka mid ah liin dhanaan, timirta, mooska, kalluunka iyo wixii la mid ah. Ka fogow basbaaska iyo canjeerada la khamiiriyey ama waxyaabaha kaloo shiidan. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.